السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وواضح أدي هذا ومهتسنتين ما أنت وقميص وأنا تضبي لباتنك بشهر نوفمبر أي كوبي تمنات سنة كلا بدو كون يشان يلا باتنك موقال كان وحن ربا إن ندي كل وذاقه مد كمده لح دلنيراه أو مدوبة أو سنة كي هراء أبص وماليات أو مرسل الجامعة ليرادو كد لي مجالة أمها قبل كنبرسكا أو الحكومي أرنتها سيدي ودعدي أيان إذا لو وذاقية sidoo kale ninkii dalka Afghanistan ka soo jeeday ee shalay caasimadda DC meel u muuqata aqalka cad ku dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee gobolka West Virginia oo ciidamadii uu Trump keenay caasimadda DC si ay u xasiliyaan caasimadda ku dhaawacay oo la ogaaday inuu yahay nin ciidamada Mareykanku ay horay u tababareen intii ay ku sugnaayeen wadanka Afghanistan isla markaana la soo shaqeeyay ciidamada Mareykanka gobol kale ayuu ka yimid ninkaasi ujeedkiisu muxuu ahaa iyo magacyada labadii askari oo dhaawacantay oo la shaaciyay mid kamidana aabaheed uu yiri uma maleynayo inay ka badbaadayso dhaawaca soo gaaray arimahaasi ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore bishii Agoosto ee 8aad 13keedii sanadkii 2024 ayaa aaba Soomaaliyeed oo la yiraahdo Mursal Jaamac waxaa magaalada Omaha ee gobolka Nebraska gaar ahaan gurigiisa hortiisa ku dilay 6 dhalinyaro ah oo madow ah kuwaasi oo doonayay inay gaarigiisa ay ka dhacaan arintaasi waxa ay u dhacday wiilashan dhalinyarada ah oo madow ah oo 6 ah da'dooduna ay u dhaxayso 11 ilaa 17 ayaa waxa ay hub ka soo dhaceen dukaan hubka lagu iibiyo oo ku yaala Nebraska City kadibna waxa ay u soo drive gareeyeen magaalada Omaha halkaasi oo ay doonayeen in baabuur kala duwan ay ka dhacaan markaasi kadib ayaa waxa ay la kulmeen aabahan la yiraahdo Mursal Jaamac oo xilligaasi shaqada Uber-ka oo ah shaqadiisa labaad ka soo laabanayay oo gurigiisa ku soo laabanayay waxayna kula kulmeen gurigiisa hortiisa gaar ahaan driveway-ga halka dadku guryaha ay ka soo galaan gawaarida marka ay wataan ama xitaa gawaarida ay dhigtaan marka waxay isku dayeen inay gaarigiisa ka dhacaan kulay waa uu kula dhagay markaasi kadibna caloosha ayay rasaas kala dhaceen waxaana arintaasi dhawaqa rasaasta maqlay familkiisa oo sheegay xilligaasi in isaga ay casho u diyaarinayeen waxaana ay u maleynayeen fireworks inay yihiin marka albaabkooda la garaacayo ayay maqleen markii ay fureen aabahood oo wajigiisa argagax ka muuqdo isla markaana dhiig fara badan ka socdo ayaa gacmahoodii ku soo dhacay markaasi kadib booliska ayay waceen haddaba marka dhalinyaradaasi waa la maxkamadeeyay bishii July ee 7 ee sanadkan ayaa laba walaalo ah oo isla dhalatay oo la yiraahdo Trenton Titisworth Hunt iyo waliba Dashan Titisworth Hunt waxa lagu helay dambigaasi marka mid kamid ah ayaa la xukumay 13kii bisha November oo lagu xukumay xabsi ah 50 ilaa 70 sano waxaana la leeyahay sharciga gobolka Nebraska waxa uu qaadan doonaa oo xabsiga ku jiri doonaa 25 sano ilaa 30 sano kadib ayuu soo bixi doonaa marka walaalkii Trenton isagana waxa la filayay in isla maalintaasi la xukumo laakiin xukunkiisa dib ayaa loo dhigay ilaa 27 bisha January ee sanadka soo socda ee 2026 marka Dashan waxa uu qirtay laba dambi oo ah in uu isticmaalay hub si uu dil ugu dhibaat dambi ugu geysto weyn iyo sidoo kalena laba dambi oo dhac ah ayuu qirtay sidaas ayaana 50 sano ilaa 70 sano loogu xukumay sidoo kale laba wiil oo kale oo magacooda la kala yiraahdo Joseph Keys oo xilligaasi 14 jir ah laakiin hadda 15 jir ah iyo Talan Wilson oo isaguna xilligaas sanadkii hore 16 jir ah laakiin hadda 17 jir ah iyagu dambigooda waa ay qirteen waxaana la xukumi doonaa in sanadka soo socda ee 2026 marka waxaa jira laba wiil oo kale oo iyaguna da'yar oo aan da'da qaangaarka gaarin isla markaana aad u da'yar oo midkood oo 11 jir ahaa midna 13 jir ahaa midka 11 jirka horta wax dambiya laguma soo oogin oo isaga waa la cafiyay laakiin kii 13 jirka ahaa oo loo maleynayo in isagu uu yahay ninka dilka geystay haddana 14 jir ah ayaa waxa isagana la saaray maxkamadda la saaro carruurtu markay da'da yar yihiin oo la yiraahdo juvenile justice systemka ayaa isagana la saaray markii la xukumayay marka ninkan la yiraahdo Dashan Titisworth Hunt hadal kooban ayuu jeediyay waxana uu sheegay in uu ka xun yahay falkii uu ku kacay isla markaana hadii dib loo celin karo
qaladkiisa uu sixi lahaa isla markaana uu isku dayayo inuu qof wanaagsan noqdo. Marka maxkamadda marka xukun uu dhacayo dadka dhibanayaasha ah ayaa iyagana waxaa la siiyaa hadalka ay jeediyaan dadka dhibanayaasha ah, impact statement ayaa la yidhaha. marka Mursal Jaamac gabadhiisa ugu weyn oo Nimco Jaamac la yidhaahdo ayaa hadashay hadal qiiro leh ayayna maxkamadda ay ka horjeedisay. waxay sheegtay in aabaheed isaga uu ka tegay 9 caruur ah oo iyadu ay u weyn tahay, isla markaana uu u ahaa aabbo oo keliya ma uusan u ahayn oo u ahaa walaal iyo adeer iyo qof talooyin siiya. isla markaana waxay sheegtay inay ku tiirsanaayeen qoyskooda ballaaran oo xitaa dalka Soomaaliya ku sugan in ay ku tiirsanaayeen, macnaha uu lacaga u diri jiray. sidaas darteed waxa ay sheegtay habeenkii uu aabaheed dhintay sida wax u dhaceen ayay ka warbixisay. waxayna sheegtay inay maqleen waxyaabo fireworks aad u malayso xilliga la dabaaldegaya la rido, markaasi kadibna albaabkooda oo xoog loo soo garaacay ayay maqleen. xilligaasi waxay ku jireen jikada oo casho ayay aabahood oo soo socda u karinayeen. markaasi kadib waxay arkeen aabahood oo furihii gaarigiisa gacanta ku wata, isla markaana wejigiisa argagax weyn uu ka muuqdo. kadibna gacmahooda ayay ku qabteen aabahood oo calooshiisa dhiig fara badan uu ka socday. gaarajka ayuuna ka soo galay ilaa iyo gudaha ayana dhiiggiisa uu ku baxay. waxaana ay sheegeen inay isku dayeen dhiigga inay joojiyaan, isla markaana ay u ducaynayeen ama shahaatinka ay u qabanayeen. waxay waceen booliska 911, ambulance ayaa timid, isla markiina waa lala cararay. waxay sheegtay qosolkii guriga ka jiray in uu oohin isku bedelay markay arkeen aabahood oo dhiigaya oo dhiig uu ka socdo. waxay ku baaqday in eedeysanayaasha aabaheed dilay ay yihiin kuwo khatar ku ah bulshada, sidaas darteed si buuxda loola xisaabtamo. waana in waxay tiri sida ugu xanuunka badan loola xisaabtamo, maxaa yeelay waxay tiri xanuunka iyo sidoo kalena dhibaatada ay qoyskeena ay u geysteen burburka ma ahan mid aan kasoo kabsan karno. waxayna sheegtay qoyskeeda oo keliya inaysan dhibaato u geysan, laakiin bulshada ku nool Omaha iyo guud ahaan Nebraska in ay dhibaatadaasi u geysteen. waxaana ay sheegtay in iyada noloshii aabaheed la sharfayo ay weydiisanayso in cadaalad ay helaan. sidoo kalena garsooruhu markuu hadalkeeda dhageystay waxa uu ku xukumay wiilkan la yiraahdo Dashan Titisworth Hunt oo 17 jir ah 50 ilaa iyo 70 sano, laakiin waxa la leeyahay sharciga gobolka Nebraska marka la eego 30 ilaa iyo 25 sano gudahood ayuu ku soo bixi karaa. marka aabahaasi Allah u naxariisto, qoyskiisana iyo dhammaanba Soomaalidana samir iyo iimaan Allah ka siiyo ayaan leenahay. ugu dambeyntii shalay waxaan ogeyn galinkii dambe in meel u muuqata aqalka cad ee caasimadda Washington DC 2 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka gaar ahaan gobolka West Virginia ka yimid oo madaxweyne Trump ciidamadii uu keenay caasimadda DC si ay u xasiliyaan ahayd in nin ka soo jeeda wadanka Afghanistan oo magaciisa lagu sheegay Raxmanullaahi Lakanwaal oo 29 jir ah oo si gaadma dhaawac halis ah ugu geystay. labadaasi askari magacyadooda ayaa la shaaciyay. waxaa gabar la yiraahdo Sarah Beckstrom oo 20 jir ah, aabaheed oo la yiraahdo Gary waxa uu sheegay dhaawaca gabadhiisa soo gaaray inay u muuqato in aysan ka badbaadaynin oo dhaawac halis uu yahay. waxaa sidoo kale askariga kale oo 24 jir ah isagana magaciisa la yiraahdo Andrew Wolf, isaga waxa la leeyahay dhaawaciisu aad halis uma ahan, laakiin dhaawac ayaa isagana soo gaaray. ninkan Afghanistan ka soo jeeda oo sida gaadmadaha ku dhaawacay labadaasi askari oo ka tirsan militariga Mareykanka waxa la leeyahay waxa uu kaarigiisa ka soo kaxaystay magaalada Bellingham ee gobolka Washington State oo xadka Canada ku taala. ilaa hadda ujeedkiisa lama ogo. waxaana uu ka mid ahaa dadkii Afghanistan ka soo cararay markii Taliban ay la wareegeen. ninkan ciidamada Mareykanka ayaaba tababaray, waxaana uu ka mid ahaa ciidamada qaaska ah ee dalka Afghanistan oo ciidamada Mareykanka la shaqeynayay, gaar ahaan Kandahar kala shaqeynayay xilligii ay Mareykanku ku sugnaayeen dalkaasi Afghanistan. waxaa sidoo kale la ogaaday in ninkan oo 29 jir ah uu codsaday magangelyo sanadkii 2024, laakiin maamulkan Trump ee hadda xilka haya ay asylumkiisii ama magangelyadiisii ay u ogolaadeen, wasaaradda amniga gudaha ay u ogolaatay bishii Abriil ee lasoo dhaafay ee afraad ee sanadkan 2025. marka Trumpna hadda waxa uu joojiyay dhammaanba in la process gareeyo kiisaska dadka Afghanistan ee Mareykanku uu soo qaaday markii Mareykanku Afghanistan ka soo baxay. gabi ahaanba hakad ayuu geliyay. hadda intooda badan green card ayay haystaan
5 sano aysan gaarin oo xilligii baasaboorka ama dhalashada ay xareyn lahaayeen aan la gaarin. Marka hadda gebi ahaanba Trumpna hakad ayuu geliyey, waa uu joojiyey. madaxa sirdoonka Mareykanka John Ratcliffe waxa uu leeyahay ninkan waxa uu xiriir joogto ah la lahaa hay'adda sirdoonka ee Mareykanka maadaama uu ka soo garab shaqeeyey ciidamada Mareykanka isla markaana uu ka mid ahaa ciidamada qaaska ah ee Afghanistan ee Mareykanku ay tababareen. ninkan Mareykanka ayaaba horey marka u soo tababaray. ID-giisa waxaa ka muuqanaysay inuu yahay taliye ka tirsan cutubka koowaad ee ciidamada qaaska ah ee ciidamadii Afghanistan ee dhinaca ammaanka sugayey. marka ilaa hadda ujeedka lama ogo. xeerlaaliyaha Washington DC Jeanine Pirro waxa ay sheegtay in ninkan haddii labada askari mid ka mida uu badbaadi waayo in dil heerkiisu yahay midka koowaad lagu soo oogaya, laakiin hadda waxaa lagu soo oogaya inuu haystay hub uu dil rabay inuu ku geysto iyo isku day dil inuu damacsanaa. isagana dhaawac waayo, isbitaalka ayaa lagu daweynayaa waana lagu ilaalinayaa isbitaalka. nafsad ahaantiisa ammaankiisa ayaa halkaasi lagu sugaya ama inuu istilo ama inuu baxsado. marka arrimahaasi ayaa ugu dambeeyey oo ka soo kordhay dhaawacii shalay labada askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee Mareykanka lagu dhaawacay meel u muuqato aqalka cad. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin leh sida iyo nabadgelyo.